marka muhiimaynaynu dhamaanteen isu taagno garbahana isu qabsano biyalaanta iyo nabadgelyadaba kana shaqeyno qof kasta oo Soomaaliland meel joogo oo ka soo cabanayo biyalaan inaynu halkiisa biyaha ku gaarsiino ciideena wax loo tirinayo biyaha gacanta ku haysa ilaahayna la kaashano alxamdulillaah rabbil caalamiin inta marka wasaaradda joognay waxa laga yaabaa meelo badan inaanu biyaha gaarsiinay oo xaafado badan sida xaafadda Samiriyeen xaafadda Caaqiliyare maxaa la yiraahdaa Caqiibo maxaa la airportka dhabarkiisa xaafadda Xarameyn maxaa la yiraahdaa shacabka intaas oo dhan waxa ay maali aagi markii hore aan biyuhu gaarsiisnay laakiin aanu biyaha u haynay waxa filayaa magaalada imika meel la taabto oo imika biyo yaraan ka jirta ma jirto marka talooyinka aanu bixinayna wasaaradda waxa weeyaan waxa dhacda in ceelal laga qodo meelaha qaar ceelasha dadku beer bay yeeshaan waxaan u sheegaynaa ceel magaalada koonaheeda iyo dabadeeda toona laga qodi karo oo aan wasaaraddu shahaadadii soo siin ama aanay ka warhayn fadlan ka soo qayb gashay cid ka soo qabatay hadii wasiirka iyo hadii maareeyaha iyo hadii shaqaalada wasaaradda dhamaantoodba uu mahad celinaa dhamaantoodba aad iyo aad u mahadsantii waanu idin soo dhaweynaynaa waanu idin la shaqeynaynaa raalli baanu idinka nahay maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin burco baahi biyeed oo qof tantu gaarsiin weydo mooyee waxaan dhalinyaro aad u fiican ayaa qabsatay biyaha jiilba jiil buu dhiibayay hoolkan sida loo sheegay horaba loo sheegay aad baan ugu faraxsanahay wax qabadkooda dhalinyarada isu laadaysa kubadda ee sida fiican u shaqeynaysa ilaa rabbil caalamiin xagga biyaha guurtadii marka dhawaan qabsatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida ay biyaha noogu keeneen iyo buclo orodka ma sha Allah annaga oo kolalka qaar aanu tukanayno gagabaysana booyadu ayadoo joogta haday doonto xuduudka meel ka shisheeyay ma tiraahdaa in yar baa soo jira alxamdulillaah rabbil caalamiin biyaha waxay noogu yimaadeen si yar oo ma sha Allah ya ma sha waxaan oran karnaa wasaaradda iyo wakaaladda iyo golaha deegaanka ee degmada Burco iyagoo isku duuban waxay suurto geliyeen in maanta reer Soomaaliland lagaga faano reer Togdheer biyuhu inay ka haqabeeleen bulshada gobolka Togdheer waxaan faraynaa inay u sara kacaan dadka abaaruhu ay tabaaleeyeen ee gobolka Togdheer iyo Sanaag ha ugu sii darnaato dhammaan waxaan leenahay dadku gacmahoodii biyo kaga dhargaan dadku waxa wada qabsadaan marka inagoo fursadda ka faa'iideysanayna waxaynu ka dhiganaynaa maanta inaynu baaq u dirro cid kasta oo daneynaysa inay ka qayb qaadato sidii wax loogu qaban lahaa ama loogu soo gurman lahaa dadka ay saamaysay biyo la'aantu ee ku kala nool gobollada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliland